kulanti haboon daawade halkan waa Somali Inside Media wararkeena xilligan waxa ugu waaweyn Trump ayaa hadda ku dhawaaqay inuu joojiyay wafdigii Mareykanka ee tagi lahaa Pakistan sida ay baahisay Fox News qorshaha ugu weyn iyo hadalhaynta warbaahinta adduunka oo dhan 24 saac ugu dambeeyay waxay ahayd martida culus ee ka qayb galaysa wada hadallada la rabay in lagu soo afjaro colaadda daba dheeraatay ee gobolka laakiin Trump gabi ahaan waxa uu sheegay inay baaqdeen wafdigii Mareykanka ahaa ee Islamabad tagi lahaa haddaba warkan oo hadda uu soo dhacay oo Fox News ay warinayso waxaan diiradda saaraynaa saameynta uu ku yeelan karo xaaladda gobolka iyo colaadda sii socota iyo doorka Trump uu ku leeyahay sidoo kale warbaahinta qaar iyada oo soo xiganayso ila Pakistaaniyiin waxay baahisay wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi in uu maanta ka baxay Islamabad sababtu lama ogo maxay tahay waan ku hayaa soo kale Mareykanku wuxuu cambaareeyay dagaalka ka socda dalka Mali oo xafiiskiisii arrimaha Afrika ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanku ay sheegtay in weerar argagixiso lagu qaaday qodobadaas oo dhan ayaan jeexjeexaynaa waana soo koobaynaa saaxiib soo dhow haddii aad nagu cusub tahay ku soo piir channelka oo subscribe soo dheh waa dagal dhawaan gal oo aan uga hadlayno wararka ugu waaweyn adduunka iyo Soomaalida guud ahaan waa maasan tahay saaxiib like nagu taageer madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadda uu shaaciyay dhowr iyo 10 daqiiqo hadda wax laga joogo ayuu shaaciyay oo yiri waxa baaqday gabi ahaanba wafdigii Mareykanka ee uga qayb gali lahaa wada hadallada dagaalka bariga dhexe gaar ahaan Iran iyo Israel ee tagi lahaa Islamabad warkan aad baa loo hadal hayaa oo waxa la leeyahay waa war xasaasiyadiisa wata xiisada cirka ku sii shareeraya sidoo kalena galaafanaya wada hadalkii la rajeynayay waxaan u sheegay kooxdayda maya ma aadeysaan safar duulimaad oo ah 18 saacadood si halkaas ay u tagaan ma galeysaan buu safar qaadanaya 18 saacadood wafdigayga Trump ayaa dhahaya dhammaan kaararka awoodda annaga ayaa gacanta ku hayna iyaga ayaa nala soo xiriiri kara marka ay doonaan laakiin mar dambe ma sameynayaan ama ma sameynayno safaro 18 saacadood oo lagu dilayo waqtiga lagana hadlayo wax aan waxba ka jirin Trump waa nin xanuunsan baa la yiri oo waalan oo waxa uu ku hadlayay wax la yaab leh wuxuu wax weyn kaaga dhigayaa diblomaasiyiintan iyo dadkan safarka wuxuu yiri waa mid lagu daalayo waqti badan oo ku lumay wax aan waxba ka jirin baana laga hadlayaa micno badan ma laha ma jirto uu yiri sabab aan u galno safar 18 saacadood diblomaasiyiinteena iyo saraakiisheena aan u daalin iyaga ayaa noo imaanay yiri hadii ay dan naga leeyihiin warkan Trump adduunweynaha oo dhan ayuu markaasi gilgilay waxaana uu saacad u sheegay in safaradan dhaadheer ee noocaas aysan galin diblomaasiyiintiisa ee wada hadallada Iran hadii ay dan u yihiin ay iyadu imaanayso haddaba maxaa kaaga baxay warka Trump sidee baa soo aragtaa dadka qaar waxay ku micnaayeen hadal jees oo liita ay ku tilmaameen gees kale warbaahinta CBS News oo soo xiganaysa ila Pakistaaniyiin ayaa baahisay in markaasi wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi uu maanta ka baxay Islamabad haddana waxa suuragal ah inuu dib ugu soo laabto Pakistan bari ama maalinka dambe halka la filayo markaasi ama halkii laga filayay in ay yimaadaan markaasi raggan diblomaasiyiinta ee Mareykanka ninkan masii ogaa waa saacado ka hor warkan Abbas Araghchi wasiirka arrimaha dibadda Iran Islamabad uu ka baxay la yiri laakiin waxa la rajeynay inuu bari ku soo laabto maadaama ay imaanayaan madaxdii Mareykanka ee wada hadalladan markaasi lala gali lahaa laakiin isagii ayaa baxay iyaga hortood ma xogta inay baaqanayaan buuhaaye ma inuu dib u soo laabto rabay wala isweydiinaya ilaa hadda Islamabad waxa isaga sheekaysanaya dadkii magaaladaas joogay iyo siyaasiyiintii wufuudii qaar ee dalalka qaar ee Islamabad laftirkeeda ay ka mid ahayd ee gadar ay ku jirtay iyo kuwii kale ee gobolka saameyntoodii hoos u dhacday la yiri iyaga oo magaaladii jooga sugayana in wada hadalladu furmaan ayaa Trump go'aankan si iskiisa u gaaray ma uusan soo qorin xitaa warbaahinta ay u sheegay gaar ahaan Fox News haddaba arintan waxa ay keentay hadalhayn badan waxaana la isweydiinayaa waxa markaasi xaalka uu ku dambeyn doono iyo sida ay wax noqon doonaan ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa cambaareeyay dagaalka ka socda dalka Mali
waxa uu sheegay in dagaalkan uu yahay mid argagixiso isla markaana wuxuusnimo ah sida uu sheegay Mareykanka xafiiskiisii arrimaha Afrika ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa markaasi waxa uu sheegay in weerar argagixiso lagu soo qaaday sidoo kale Department of State oo USA ay ku leedahay magaalada madaxda dalka Mali ayaa weeraraas argagixisanimo ay ka dhaceen waxaana ay ku sheegeen wax aad loogu xumaado oo fool xun sida markaasi ay hadalka u dhigeen gudahaan saaxiib mawduuceenan waa naga inta la soo barnaamij wareedkeena labaad oo soo gali doona saqbarka caawa saacadu marka ay tahay 12 saqdhex inta ka sokayso waxaan ku leeyahay nabadgelyo